ku-xigeenada golaha wakiilada iyo golaha guur sare gudoomiyaasha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi intiisii badnayd waa la yidhi innagu maalin walba way kala kacayaan niman danteenna wada maaha waxay doonayaan sidooda inaynu ku noolaanno waxa madaxweyne soo jeedin lahaa ictiraaf raadinta in la kordhiyo oo la wado inaynu samaysanno ciidan adag oo soo celino national servicekii oo ardada iskuullada ka soo baxaysa madaxweyne aynu tababar u samayno u diyaar garowno gacanna ugu diyaar garowno dagaal gacanna ugu diyaar garowno ictiraaf raadin waxa weeye waa bareedh waa laynoo bareedhsan yahay dowladaha iigadna awille wax kama aynaan sugayn waxaanay ku kacayaana way og yihiin Soomaaliya inay nabad tahay way og yihiin inaynu intaasoo doorasho gallay way og yihiin inaynu xukuumad baarlamaan aynu leenahay calan leenahay lacag leenahay waxaa la rabaa waxa weeye in tana la burburiyo siday u burburiyeen Soomaaliya marka waxaan soo jeedin lahaa waxa weeye inaynu samaysano cudud adag oo ciidana oo national service aynu gelino iskuullada secondary-ga ka soo baxaya oo aynu u diyaar garowno Soomaaliya cadaawadeena kaga soo socota maalin walba waa la caawinayaa ciidan baa loo dhisayaa waxaana loogu dhisayaa inay tan burburiyaan marka anigu walaalo odhan maayo walaalo ma nihin haddaynu walaal nahay waxay noo samayn lahaayeen waxooday qabsan lahaayeen teennana wayna dhisi lahaayeen intaasoo wada hadal baynu la gallay wax alle waxaynu ka faa'iidnay ma jirto walaalo ma nihin inama aqoonsana jiritaankeenay ka xun yihiin marka waxaan soo jeedin lahaa inaynu ciidan adag dhisanno oo u diyaar garowno cadaawadda ina kaga soo socoto Soomaaliya ilaahay baa marba sii kala daadinayo waa kuwa dee 8 u qaybsan waana sii qaybsamayaan aynu kalsooni muujinno isku kalsoonaanno dadkeenna midayno aynu meel wada jeesano ictiraaf raadintana yaynaan ka daalin waxa la rabaa inaynu ka daalno oo layna ku khasbay inaynu Soomaaliya ku noqonno sidii madaxweynuhu sheegayna 100 sano hadday qaadanayso waxa weeye inteena yar baynu isku filaysiinana haddaba international community waxayna siisaa ma jirto workshop bay inoo qabtaan marka waa inaynu isku kalsoonaanaa innagana waxayna ictiraafsan dadkeenna iyagana waxay ictiraafsan international community-ga laakiin dadkii baa ictiraaf waayay marka waxaan soo jeedin lahaa madaxweyne inayna ka daalin ictiraaf raadinta quwad inaynu dhisanno oo caruurteena national service-ka gelino u diyaar garowno waxa ay samaynayaan wax ka xun iigad iyo international community-guna way inoo bareersan yihiin aynaan waqti badan iskaga lumin laakiin aynu inagu midnimadeenna iyo walaalnimadeenna aynu dhisno inagu is-ictiraafno meel ka soo wada jeesano wayda salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu